wasiir elay ciidankiisa la weeraray guriga lagu weeraray wixii xuba meesha u yaalaa la dhacay wixii alaaba meesha yaalaa la dhacay waxa ku jiray waxa meesha yaala xuba laga qaatay daraawishta markay howlgal sameynayaan baydhow gudaheeda ay howlgal ku sameeyaan guri alle hay soo weeraraa guri ciidan ay joog ana shabaab ahay maamulka koonfurka baad guriga in yani alaabtiisa la qaato horta wixii ugu muhiimsanaa ayaga qaatayba haday noqon lahayd hubka noocyadiisa kala duwan iyo haday noqon lahayd alaabihii ugu muhiimsanaa oo badbaaday qaarkood waxa meesha lagu burburiyay qofkana markuu wasiir yahay dawlad ku jiro hadana musharax yahay gurigiisa wax kasta laga helaa qof kastaana joogi karo wasaad Soomaalida ay tahay qofka markuu musharax yahay gurigiisa ciidamada tar badan ay joogo dawladda u dirtaba ma shabaabku baydhow aqarkeeda joogo maalin dagaalantid inta gurigeyga ku mashquul lahayd kulan wacan daawadayaal ku soo dhawaada waraysi kooban oo ku saabsan xaaladda guud ee dalka gaar ahaan xaaladihii ugu dambeeyay ee deegaanada koonfur galbeed oo dhawaan halkaasi ay ku dagaalameen ciidamada maamulkaasi koonfur galbeed iyo sidoo kale ciidamo kale oo taabacsan taliska xoogga waraysigan kooban waxaa la yeelan doonaa siyaasi Cumar Aadan Cumar oo loo yaqaan macallimo oo ka soo jeeda deegaanada koonfur galbeed isla markaana waxaan wax ka weydiin doonaa xaaladda guud ee maamulkaasi koonfur galbeed maadaama dhawaan dagaal uu ka dhacay magaaladaasi Baydhabo isla markaana dad badan ay ku dhinteen sidoo kale la boobay gurigii uu deganaa wasiirka xanaanada xoolaha Xasan Elay siyaasi ku soo dhaw Kaab Somali TV sharaf ay noo tahay inaad ku wareysano ka waran maxaa akhbaar ka haysa maadaama aad ugu dhowdahay meesha oo xog badan ka hayso maxaad kala socotaa waxyaabihii ugu dambeeyay Assalamu alaykum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh aad iyo aad u mahadsantihiin dhammaan shaqaalaha Kaab TV sidoo kale walaalkii Xuseen adna ku salaamaya waa ku dhubahay Kaab Somali TV dabcan maaragtay waxa tihiin dad dhalinyaro oo maaragtay bulshada Soomaaliyeed aad ugu shaqeeya wulana maaragtay tihiin samafalaya marka TV-ga inta waa ku dhubahay shaqaalaha iyo guud maamulkan waa salaamaya su'aasha ay weydiisay oo ah maxaa kala socota arinta deegaanada koonfur galbeed dabcan deegaanada koonfur galbeed marxaladahooda maanta qof Soomaali oo joogo oo marxaladaha siyaasadaha Soomaaliyeed la socdana uu dareemi karaa marxaladaha ka jiro koonfur galbeed waxa ay tahay waa deegaanka kaliya maaragtay maanta bulshada Soomaaliyeed mise bulshada deegaankaas degan waxa waaye marxalado kala duwan ay marayaan waaye haday noqon lahayd abaaradii haday noqon lahayd dagaaladii shabaab waxa uu sii dheer dhaxdooda maaragtay lagu dagaalamayaa maamulka dhexdiisa maalmihii u dambeeyay deegaanada si gaar ah magaalada Baydhabo waxyaabihii ka dhacay waxa Soomaalida oo dhan la wada socotay ahaayeen deegaanka magaalada Baydhabo dhaxdeeda la isku xabadeeyay maaragtay dadka saxbadeeyayna ma aha dawlad iyo ma aha dadka la dagaalami jiray shabaab ma aha waa maamulkii gudihiisa oo maaragtay ay isku magacaabeen mucaarad iyo muxaafid marka dhibaato baan ka jirto deegaanada koonfur galbeed oo si gaar ah waliba maaragtay dagaalada ah abaaraha hadda naftirkooda ma ogtahay dagaalada hadii ay yaraadaan abaaraha naftirkooda xal loo helaa laakiin Baydhabo iyo deegaanada koonfur galbeed guud ahaan waxa ka jiro dagaalo sukeeyo oo qabiil ah marka dhibaatadooda aad ay u badan tahay ka waran dagaalkii ugu dambeeyay ka dhacay Baydhabo oo u dhaxeeyay taliska ciidamo ama saraakiil ka tirsan oo ku sugnaa guriga wasiir Xasan Elay muuqaal baraha bulshada wareegayay waxa ay muujinayeen guriga oo la boogayo oo jiingadaha sare laga fiiqayo waxyaabo kale laga soo bixinaa ka waran shinu waa maasan tahay horta Baydhabo dagaalada ka dhacay guriga oo hadda koowaad oo la boobay maaha waxa jirtay oo dhacdo ka horeysay ah guri qof musharax leeyahay oo maaragtay tan hadda maalin dhaweed ay dhacday ka sii daran ku dhacdaa jirto waliba shaqaalihii ay joogeen iyo ciidanka meesha joogay oo dawladda markay u tagtay ayadoo nabadgelyo raadinayaan maaragtay dadkii meesha joogay lagu dhaawacay qaarkood nasiibo baasan loo geystay gurihii la dhacay waxa waa dhibaatadoodana maaragtay waliba oo faraq maaragtay inoo noqotay dhibaato aad u badan tii maalin dhaweed ay dhacaysay guriga waxa iska lahaa in la yiraahdo Xasan Xuseen Elay oo maaragtay xildhibaan oo dawladda federaalka ka tirsan oo koonfur galbeed oo ahaa aasaasihii koonfur galbeed dadkii dawladda koonfur galbeed aasaas uu ku jiray oo wasiirka soo noqday koonfur galbeed maalintii la aasaasay ilaa abtuna uu ku dhex jiray maaragtay marxalad kala duwan oo soo qabtay haddana isoo koonfur galbeed joogay dawladda federaalka loo soo gudbiyay wasiir amniga soo noqday
wasiir oo maaragtay soo noqday trade rawisho ka noqday waxa waa deegaanada marka dad u shaqeeyo kamid ahaa oo waliba ciidanka soo saaray ciidanka koonfur galbeed maanta ay leedahay waa ninka abaabulay oo soo saaray ahaa gurigiisa la weeraray ma ahayn oo qof oo burcada ma ahayn qof dawladeed u ahaa wasiir dawladeed u ahaa xildhibaan dawladeed u ahaa haddana qof musharax u ahaa si kas ah gurigiisa loo weeraray lafta gareen ciidamo ka amar qaata moogtahay waxaan waa la isku dawladeeyaa Soomaalida dhexdeeda markaa joogno ciidamada guriga Xasan Aalay musharax madaxweyne weeraray oo xildhibaan wasiir ka tirsan dawladda federaalka weeraray ciidamo qabeelaysan ay ahaayeen oo lafta gareen ku heeba waa ka amar qaata oo isaga la socdo gurigiisa waxay ku weerareen xaas maamul ahaan ay ku weerareen ayagoo isticmaalaya shaarki maamulka waxay ku tilmaameen burcad ciidanka meesha joogeen waxay ku tilmaameen kuwa ayagan isbaarley oo burcad ay ku tilmaameen gurigiisa saasa lagu weeraray dadkii meesha joogaa la laayay maartay wixii hanta ah meesha yaala la dhacay dabcan maanta Xasan Aalayna ma aha qof maanta dawladda Soomaaliya iyo dawladda koonfur galbeed midna ka shaqeysa ma aha nin dawladeed waa in gurigiisa la weeraro oo maaragtay la dhacana waxay u tahay koonfur galbeed ay sharaf u tahay marka asbaabahaas ka dhacay deegaanada koonfur galbeed guud ahaan magaalada Baydhabo wax saxana ma ahayn dagaalkaasi labada maalin socday ee Baydhabo ka dhacay maxaan ognahay oo khasaare ka dhashay dhimashada ka waran wallahi horta dhimashadu niyo waa isii taraysaa maanta u dambeysay dad dhalinyaro oo maaragtay dagaalkaas wax ku gaareyna isbitaalada ku wada dhintay wax meesha social media ku wada jirnaayo wixii meesha ka dhacayna waa taal soo wada bandhigay almost dadku dhawaad 30 qof ku dhawaad meesha ku dhimatay waxa waa dhaawac lama tirin karo wali isbitaalada yaalan qaarkood isbitaalada magaalada Baydhabo marka waxa yaani daawo loo heli waayay magaalada Xamar loo soo qaaday qaarkood dalka dibadiisa loo qaaday waliina dhaawacooda maaragtay sidoo qaarkood isbitaalada ay maaragtay dhaawacyadooda ay yaalan hadda maanta u dambeysay dhowr qofood maaragtay isbitaalka magaalada Baydhabo ku dhimatay haddana maalmaha soo socda haddana sidii leh waay oo ayagoo maaragtay ay yihiin dad deegaankaas maaragtay u dhashay oo shacabka deegaankaas degan ah dadka hadda isbitaalada ku wada dhimanayo ma aha dad oo dagaalkan ku jirayna ma aha dad oo maaragtay qori watayna ma aha dad shacab ah oo wixii la isku riday gurigooda ugu tagay ahaayeen marka dhibaatada dhimashada ma yara dhaawacana kaba sii badanba marka taasna waxa dusha saaran karo lafta gareen dad badan waxay amaan hubiyeen madaxweynaha maamulka koonfur galbeed lafta gareen oo ay sheegeen in ammaanka waxyaabo badan uu ka qabtay siyaasiyiintan kalena ay doonayaan inay ammaanka faragelin ay ku sameeyaan ama carqalad ka waran sidoo arag wallahi horta qofba moogtahay Soomaalideena tagan waxa leenahay ninka siyaasiga ah markuu kursiga ku fadhiyo wixii systemka meesha jiro oo isugu ku dhex jiro taageera haddana maaragtay haddana waxaan nahay dadka imagine-ka siyaasiyiinta marka laga reebo dadka maaragtay siyaasadaha falaqaya mise dawladda u dhow qofku waxay ku taageeraan ama reer ahaan ay ku taageeraan ama waxa meesha ugu soo dhaco saas darteed ay ku taageeraan laakiin si sax marka laga hadlo koonfur galbeed maalinta lafta gareen loo dooray in la abtuna weligeed hal maalin lama sheegin ayadoo shabaab la dagaalantay lafta gareen maalintii la doortay Baydhabo la keenayay almost dad ku dhintay Baydhabo intuu joogayna dadka deegaanka la dagaalamay ma ahay shabaab lama dagaalamay hal maal tuulo xoreysay oo isku furan ma jirto fiiri lafta gareen maalintii la doortay ama diinsoor ku dagaalama ama bardaaro dagaal ku sameeyna mise xudura dagaal ka sameeyna mise shabeellada hoos u imaana markii baraawo ku dagaalama dad wax intaas ahaan oo qabtay ma jirto ciidan koonfur galbeed oo loo dhisayna ma jirto lafta gareen ciidamada sameeyay horta dadkaas ku gumaado waa ciidamo hal beel ah يعني marka laga reebo lafta gareen diis jifada reerku ka dhashay marka laga reebo jifada hoose waa intaas intuu abaabulay ciidanka waxa lagu qoraa intaas lagu qoraa lafta gareen ciidan markuu qoranayo wuxuu dhahaa yaatiin reerku weydiiyaa dhalinyarada deegaanka u dhalatay oo fursad u heli lahaayeen inay dalkooda difaacaan wuxuu ku xujeeyaa inay reerkooda maartay ciidanka laga qaraa aysan ahayn wuxuu weydiiyaa yaa tahay reerka tahay waliba reerkiisa cid u hooseyso ciidanka qoraa si maartay idanaha uu leeyahay u fuliyaan qofka dawladana dadkaas u isticmaala marka deegaana la xoreeyay iyo shabaab la dagaalamay iyo amniga koonfur galbeed ka shaqeeyay isno nothing wax oo waxba ka jiraan waa hadda maanta waxa isku dhow awdiinle iyo Baydhabo isku dhow waxa isku jiraan 30 kilomitir isku jiraan lama mari karo wadada so awdiinle ciidan oo waxa degan oo dawladda ay leedahay oo ciidamo qaybta lixdanaad oo dawladda federaalka militariga degan Baydhabo isaa ka taliyo waxa u dhaxeeya lama mari karo waxa ku mari kartaa
maaragtay inaad ku haysatid oo maaragtay adoo isdifaacayo aad martid maaha qof kale si kale shacabka 24 hours canshuur laga qaadaa markay u socdaan awdiin 30 kilomitir bay u jirto waxa laga qaadaa canshuur laga qaadaa shabaab canshuur ka qaado baydhabo boodkeeda ay joogaan suuq xoolaha hadda baydhabo oo ma shalay lagu dagaalimayo oo dhalinyaro oo deegaanka u dhalatay oo dagaalka ka bilowday oo dhalinyaro deegaanka u dhalatay lagu weeraray 24 hours shabaab waxa ka qaada canshuur ka qaado mala dagaalamaan lafta kale wuxuu la dagaalamaa waa dadkii deegaanka jooga uu bas uu la dagaalamaa oo maaragtay has fikir ahaan ka duwan marka deegaanada koonfur galbeed amnigiisa ka shaqeeyay lafta kale ma jirto isna nate wax been waa wax ma jiraan amnigana marka laga shaqeeyo hadda Soomaaliya waxa ugu badan ay la dagaalanto shabaab waa lafta kale shabaab lama dagaalamin hal maalin oo lafta kale shabaab la dagaalamin lama sheegay mar gaal jaclu la dagaalama mar maaragtay leysaan iyo xareen isku darsanaa hadda tii u dambeysay eelay iyo xareen isku darsan marka dadka deegaanka bas la dagaalamaya dagaalku la jira ciidanka daraawiishta koonfur galbeed howlgalay ka sameeya inta badan deegaanada koonfur galbeed ma waxaa leedahay howlgaladaasi wax ka jira ma lahan howlgalada la sameeyo howlgalada yani hadda Soomaaliya waxay la dagaalantaa shabaab waa dad kale maanta la dagaalamo dawlado kale maanta lagu soo duulay ma jiraan Soomaaliya maanta waxa badi ay la dagaalanto waxa waay ay fikir ahaan ay kala duwan yihiin shabaab waa howlgalka marka la sameeynayo dawladda koonfur galbeed markay daraawiishta howlgal sameynayaan horta ay la dagaalamayaan taas in la fahmo waa ma shabaab ay la dagaal kula jiraan mise dadkii deegaanka ay dagaal kula jiraan daraawiishta markay howlgal sameynayaan baydhabo gudaheeda ay howlgal ku sameeyaan guri Allah yahay soo weerara guri ciidan ay joogo ana shabaab ahay may dad qof deegaanka u dhasha ahay gurigayga hadii ciidan joogo daraawiishtu markay weerar fulinayaan gurigayga ay soo weeraraan gurigayga weerar qabtan waxay leeyihiin burcada beesh ku jirto ma shabaabku baydhabo aqarkeeda joogo maal dagaalantid inta gurigayga ku mashquul lahayd marka howlgalada ay fuliyaan waa howlgalo dadka lagu dhibaateeya oo dadku lagu bahdila oo maartay dambi ay lahayn dusha laga saara wax ay ahayn lagu tilmaama wax baydhabo dhaafsan maaha baydhabo wax dhaafsan maaha wax intay ka dagaalamaan wax baydhabo dhaafsan maaha baydhabo dhaxdeed ay dadku ku gamaadaan dad intaas waxa ay ahayn ma sameeyaan arintii ugu dambeysay ka dhacday baydhabo boobka ahaa guriga wasiirka lagu boobay maxaa nooga sheegi kartaa oo hadda yani waxyaabaha guriga laga qaaday ma huwa ku jiray ma alaab caadi ahayd ka waran guriga oo la weeraray wasiira iska lahaa saan hore u sheegnay qofkana markuu wasiir yahay dawlad ku jiro haddana musharax yahay gurigiis wax kasta laga helaa qof kastaana joogi karo wasaad Soomaalida ay tahay qofka markuu musharax yahay gurigiisa ciidamada tar badan ay joogo dawladda u dirtaba ay dhahdaa ninkaas musharaxaas gurigiis amaankiisa hala sugo wasiir eelay ciidankiisa la weeraray guriga lagu weeraray wixii xuba meesha u yaalaa la dhacay wixii alaaba meesha yaalaa la dhacay waxa ku jiray waxa meesha yaala xuba laga qaatay xafiisadii qalabka oo maaragtay oo isii ku qalabay gurigiis ku qalabay la qaatay wax la raabtay oo Ilaahay abuuray waxa gurigaas looga tagay ma jiraan wixii gurigaas yaalay oo wasiirkaas iska lahaa oo dhan la wada qaatay muuqaalo baraha bulshada lagu baahiyay dad oo dhacaya oo guri wax ka soo la baxaya ayaa la arkayo ku baraha bulshada maamulku Soomaaliya inuu dhaho yani ka jooga ama uu ka celiyo maadaama hanti maamulka koonfur galbeed guriga in yani alaabtiisa la qaato horta wixii ugu muhiimsan ayaga qaatayba haday noqon lahayd hubka noocyadiisa kala duwan iyo haday noqon lahayd alaabihii ugu muhiimsan oo badbaaday qaarkood waxa meesha lagu burburiyay qaarkoodna maaragtay moogtahay waa wixii ugu muhiimsan ayaga qaatayba shacabka arkaysay oo fiidiyoyada la soo dhigayayba waa wax ay ka tageen oo bisay qaateen waa marka ayaga u bilaabayba sabab maanta ayaga dhahayay hala dhaco wixii ku aragtaan ka qaata guriga fahanti marka taasna Soomaalida waxay sameeysaa marka ay weerar meel kala duwan ay ka fuliso waxay dhahdaa Amiir Hebel la dilay waxa waaye goob Hebel la weeraray deegaan Hebel la weeraray dadkaas laga kiciyay wixii yaalay dadka deegaankaas qaataan tii amal waay marka tii lamid ah waay mid baydhabo ka dhacday goob wasiir gurigiisa la weeraray taasna maanta ma aha wax lagu faanana ma aha ina qof walaalkaaga isku siyaasad ay tihiin oo idin dhaxayso fikir duwanaansho yar oo marka wada fadhiisataan ka heshin kartiin ina maaragtay gurigiisa maaragtay hubka noocyadiisa kala duwan oo ku horid oo gacan saddexaad u raadisid oo maaragtay wixii yaaleen aad dhacdid wax minu ku soo kordhiso maaha magacan kuma sameeysan kartid wararka warbixinada waraysiyaada iyo falanqaynta Kaab Somali TV
waxaad kala socon kartaa baraheena bulshada Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, YouTube ama ku soo biir barteena Telegram ee Kaab Somali TV. haddii aad hayso talo ama tusaale ama aad doonayso inaad nala wadaagto aragtidaada waxaad inoogu soo diri kartaa WhatsApp lambarka shaashada kaaga muuqda ama emailka info@kaabtv.com. sidoo kale si fudud u booqo kadibna rukumo website-keena www.kaabtv.com si aad ugala socoto warbixinada Soomaali iyo English labaduba. Kaab TV waa kaabaha bulshadeena.